السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا Get Fit with AC وانيقو أحمد عبد الرشيد علي. ما أنت وحن كهاد للدونا سيدا هيليف كالاسكاقا يريا قربها كاسانا. انتينو اينو بلابين اكسرسايز ككور هلكم waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan asxaabtayda subscribe tiri channelkayga intii aan subscribe lihin please waxaan inaga codsanayaa inaad subscribe tiraadaan before aad intaan ka bixin halkan mahad gaar ah waxaan ugu celinayaa habaryar Yasmin caafimaad fiican thank you very much habaryar halkan waxaan ugu tusi doonaa maanta 3 exercise aad ku goyn kartid hilibka adigoo jooga gurigaaga hilibka waxa garbaha ka saaray inta badan dhibaato waxay ka haysataa dumarka iyagoo aan weights inta badan qaadin waana si yar oo fudud ay ku goyn doontaa insha Allah ila socda video gaaban waxaan u soo duubay Maryam walaashay Maryam waxaan ku leeyahay video daawo oo samee waxa aan ku raado si degdeg ayuu hilibkan kaaga goyn doonaa insha Allah exercise ka ugu horeeyo waxaad sameynaysaa gacmahaaga ayaa wareejinaysaa gacmahaaga marka wareejinaysid waxaad sameynaysaa exercise tan 20 jeer 20 ka jeer waxaad sameynaysaa 3 jeer midkiis 3 sets exercise ka kale ee ugu xiga waxa weeye push up talaba nooc ba sameyn kartaa ta caadiga ah iyo dumarku ay sameeyaan ama qofkaan aqoon inuu push up si uu sameeyo push up waxaad ku baran kartaa horaan inuu tusayo waxa weeye tan qof kasta sameyn karo isagoo ruuga ka dhiganaya tan markaad baratid ka kale ayaad sameyn kartaa haddaad taqaanid already tan push up ta caadiga taa sameey waayo markii taasaa ka fiican in badan imika waxa sameyn doonaa tacaadiga hadda taqaanid waxaad isku daydaa inaad 15 jeer samaysid exercise-yada noocan iskan ugu dambeeya waxaad u baahantahay kursi soo qaado ka bacdi sidan samee inta waxay noogu dhamaaday exercise-yadii lagu jirayay hilibka garbaha ka saaray ama gacmaha oo mahadsantiin ayaan leeyahay haddii aad wax su'aalo qabtid commentiga ka bixi haddii video-gan ku cajabiyay like saar haddii kalena asxaabtaada la share garee subscribe dheh haddaad subscribe already dhihin waa mahadsantiin thank you very much waxaan isku ognahay almiita fiican